wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed oo maanta safar shaqo ku yimiday magaaladani Gabiley ayaa si adag ula hadlay xisbiyada mucaaradka Soomaaliland oo uu sheegay inay ku baaqaan in wadankan Soomaaliland looga baahan yahay jabhad waxaana xisbiyada Soomaaliland isagoo la hadlaya uu yiri marka waxaynu baahannahay arrintan nabadgelyada ayaa inoo suuragelinaysa ayaan dhaweytana waabaynu maqlaynay qolo la jabhada loo baahan yahay xisbiye la jabhada loo baahan yahay malawaanay soo marin xanuunkeedaanay arag sidoo kale wasiirka arrimaha gudaha Maxamed Kaahin Axmed waxa uu ka hadlay gudidii cusbaa ee doorashooyinka Soomaaliland oo uu sheegay in dhawaan la dhameystiri doono oo ay la wareegi doonaan xilka qof waleeba doorashadii imika baarlamaankii iyo golihii deegaanka qolaha guurta golihii hore commissionku wuxuu xilligii ka dhamaanayaa waa November commissionkii cusbaa baa imanaya dhawaan buu magacaabistiisa wada dhamaystirmaysa baarlamaankii cusbaa iyo commissionkii cusbaa baa la dooranaya ikhtiyaar buu qofku markaa leeyahay yuu dooranaya ikhtiyaar buu leeyahay xisbigu wax ka dooranaya laakiin waxa inaga wada dhaxaya waa qaranka waxaynu u baahannahay inaynu wada ilaalino guuleed Ali Ibrahim Kacse Sab TV Gabiley adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo Idahab casriyeynta hanaanka cusub ee xawilaadda Dahabshiil haddaba macmil adeegan cusub ee casriga ah waxa uu ku sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida